gabadha madowga ah ee gaalada ah waxay u wadaa Soomaalida digniin waxay tiri Soomaaliyay ogaada cadaanka iska ilaaliya Somali community. You know I love you. You know I do. And what I'm about to tell you this is coming out of love, not hatred or racism, but to bring awareness. It's trending all over social media that there is an 18-year-old black boy out of Mississippi. qiso in caadi ahayn ayaa la hadalhayaa Mareykanka wiil madow ah ayaa lagu waayay meel oo raacay wiilal cadaan ah qisooyinka markasta way soo laabtaan haddii aad kaliya madow tahay oo cadaan ah raacdid waxa laga yaabaa inaad soo laaban nolol ku soo laaban wiilkan dhalinyarada ah 18 jirka ahay wiilashii asxaabtiisa ahayd ayuu raacay markuu raacay waa la waayay markii soo laabteen waxa la yiraahdaa wiilkii waxay dhahay moogin anaga waa cabnay waa ka dhacnay moogin meel ka baxay markii noogu dambeysay gabar ayuu raacay gabadhiina markii la weydiiyay waxay tiri aniga moogi ninkaas waa kala tagnay moogi way soo laabteen marka wiilashii iyo gabadhii way soo laabteen kulligood ayaga caafimaad qaba wiilkii maalmo ka bacdi waxa la helay meedkiisa wiilashii markii la weydiiyana way aamusan kulligood looyaray qabsadeen sidoo kalena maamooyinkooda qaarkood looyaro waa qisada marka way iska caddahay wiilkaas waxbay ka ogaayeen dhimashadiisa badanaan qisooyin badan ayaa ka dhacay Mareykanka wiil madow ah ama gabar madow ah oo sidoo kale raaceen cadaan hadhowtin la waayay sidan naagtan oo kale guriga ay joogto meel laga soo tuuray waxa la yiri moogin wax ku dhacay marka qisooyinkan oo kale iska ilaaliya cadaanka waa sheekadii anaga Soomaalida aan badana yaani digniinaha anaga aan dhaxdeena isdhaxno waa cadaanka iska ilaaliya cadaanka waa halis qaarkood qaasatan kuma sii jirto hadii aad raacaysid meel aadan ogeyn walba Soomaali kala kula socoto madow kaliya ma Soomaali kala kula socoto hada Soomaali tahay ay dhaxdeedu waxay dhahayaan madowga waxay dhahayaan madow kala kula socdo laakiinse meeshan Soomaali kala kula socoto maadaama madaxweynaha Donald Trump oo Soomaalida si weyn maalka soo caayo hatta caruurtoodii malwid caruur daayar oo iskuul dhigto oo muslimiin ah ayuu soo qaad sawiradooda oo Soomaali ah oo soo qaad sawiradooda markaas soo dhigay kulaha wax kana Mareykanka u jeedin caruurtii xijaab loo xiray markaas dacaayad wax kasta caay caruurta loo geysanay sidoo kale Soomaalida iyo muslimiintii sidoo kalena dacaayad wixii gaartay Yurub kuwa xaq jirka ahay waxay Soomaalida bilaabeen caayaan marka Soomaalida hadda xaalad la joogo in iska ilaaliyaan cadaanka walibana dhalinyarada hadda asxaab la tihiin ha isku raacinina meel walibana la soo seexanayo waa halis marka qisadan ayaa haysto Mareykanka oo dhan kuma tigno soo qor fikirkaada